bismillahi raxmaan raxiim kusoo dhawaada shabakada sologroups.com ee laga barto cilmiga ICT iyo English oo ku baxa luqadda afka Soomaaliga. Magacaygu Cabdinaan Ismaaciil. Mar walba waxaad nagala soo xiriiri kartaan info@sologroups.com. waa luqadda Ingiriiska ama English language oo ku baran doono fundamentals of English, a grammar, interactive. Listen, waa dhegeyso, repeat ku celi, kadibna baro luqadda Ingiriiska. waa 14 chapter kala duwan oo ay hadlayaan cartoonkan gacanta lagu sameeyey, kaasoo haddii aad dhegaysatid aad ku celisid si fudud aad u baran kartid luqadda Ingiriiska. ka linkiga downloadka shabakada sologroups.com ayuu ku jira haddii aad member ka tahay ama aad iska diiwaan geli kartid. halkaad ayaa kala socon kartaa. marka waxaanu isticmaalaynaa file SWF kaasoo mar walba arki doono. waxaa loo isticmaalayaa oo keliya Internet Explorer ama Firefox ama SWF file hadduu computer ku jiro. marka waa fundamentals of English grammar, waa naxwaha luqadda Ingiriiska oo interactive waa video, waxyaabo la arki karo isla markaana raaci karo. marka waanu dhegaysanaynaa, waanu ku celinaynaa, isla markaana waxaanu baranaynaa luqadda Ingiriiska. ugu horeyn waxaa halkan u yaala folderka aad ka download gareyn kartaan shabakada sologroups.com kaasoo ah fundamentals of English grammar interactive. laba jeer ayaan furayaa. waxyaabo aad u fara badan ayaa ku jira. marka contents haddii aan eego waxaa ku jira waxyaabaan baran karno kuwaasoo chapterada kala duwan. present time, overview, simple present, present progress, past time, future time, present perfect and past perfect. kuwaasoo kala duwan ayaan ku baranaynaa. ugu horeyn haddii aan eegno appendix 1 kaasoo ah phrasal verbs, laba jeer haddii saan u riixo fileka sidan ayuu ku imaanaya. saa ku aragtaana waa file ama flash SWF file. waa lagu furi karaa, uma baahnid flash inuu ku dubnaado computerka. waxaad samaynaysaa keliya right click ayaad leedahay, midig ayaad riixaysaa, open ayaad leedahay, kadibna Internet Explorer ama Firefox ama Edge wuxuu ahaado isaga ayaa highlight laga dhigaa. halkan ayaa saan loo riixaa, kadibna okay ayaa leeyahay. fileka sida ayuu kugu furmayaa. marka faylal badan ayaa ku jira. halkana waxaa yaala saa ku aragtaan PDF file oo casharada la isticmaalayo ku fududeynaya isagoo qoraala. marka ugu horeyn waxaan ku furaynaa kan. laba jeer markii aad riixdid waa in aad ka dhigtaa allow plot content, waa inaad riixdaa sababtoo ah Internet Explorer restriction ayuu ku sameynayaa active X control. allow markaan idhaahdo fileka sidan ayuu soo baxaya. waad aragtaan waa interactive phrasal verb kaasoo halkan uu ka bilaabayo hi there. let's look at the phrasal verb turn on. you can separate turn and on with an object if you want. marka wuxuu kuu sheegayaa qaabka luqadda Ingiriiska loo kala saaro ama separate looga dhigo. tusaale ahaan I turned my computer on ayaa halkan ku qoran, ama waxaan shiday computerkayga kaasoo dansanaa ayaan shiday. so we say that turn on is separable ama turn on waa la kala bixin karaa, separate ayaa laga dhigi karaa. it's also perfectly okay to say I turned on my computer. waana si caadi ayaa loo dhihi karaa oo shaqaysa oo jirta qaabkan. markan wuxuu ahaa I turned my computer on, kana I turned on my computer. marka except ayaa lagu leeyahay, laakiin haddii ay dhacdo here the things, if the object is a pronoun not a noun, magaca, then you have to separate a phrasal verb. marka haddii aan magacaan ahayn waa inaad kala bixisaa. marka wuxuu noqonayaa I turn it on, sababtoo ah magac ma ahan, kan ayaa soo gelaya not I turned on it ma ahan. markaasana ayuu kala duwan yahay. marka English language-ka mar walba waqtiyo badan ayaan waxaan ku soo baranay in ereyga muhiimadiisa meesha uu ku jiro la gelin karo. tusaale haddii aan soo qaadano, markii aad furtid filekan sidana waxaad samaynaysaa speakerkaaga ama headphonekaaga waa inaad haystaa, sababtoo interactive waa flash ama wax la arkayo isla markaana cod leh. halkan ayaa laga bilaabayaa, halkan ayuu ka bilaabayaa. waan maqlaya hi there ayay ku bilowday gabadhan hadlaysa. marka phrasal verb ayay ka bilaabaysaa. haddii aan xiro aan aado kan kale, mar walba waxaa muhiim ah inaad u ogolaatid kan. gudaha waa laga samayn karaa, laakiin waa security risk, saa ayaa loogu ogolaadaa. marka halkan waxaa yaala hadda intransitive verb iyo phrasal verb kana. marka hello again, you've just been working a phrasal object that have object. I turned on the light, I turned it on. As some phrasal verbs don't have object.
phrasal verbs qaarkood ma leh object. Do you remember a guy name intransitive verb? Well, here he is. waa qofkan. Hi there. magacayay ugu yeeraysaa. tusaale ahaan waxaa la leeyahay halkan I'm not followed by an object like the verb fall. Rain falls. No object after that. marka waxaa samaynaysaa halkan ayaad riixaysaa. marka qaabkaas ayuu interactive u samaynayaa labada qofood iskula hadlayaan. marka haddii chapterkan asana u raacdid aad fahantid kan kaliyaad u gudbaysaa proposition a combination. tusaale ahaan haddii aan sidan riixo aan idhaahdo allah aan idhaahdo waxaa soo baxaya do you ever get lonely? mararka qaarkood ma darintaa inaad keligaa aad tahay ama qof keligii ah uu yahay? I do. marka I am a preposition oo qofkana magaca hadlaya karayuu noqonayaa. and I don't like to be alone. mana jecli inaan ahaado qof keligii ah. I ereyga wuxuu ku bilaabanayaa kan especially like to hang around with adjectives and verbs. I follow them all the time. marka here I'm in combination with adjectives. haddii la isku daro combination wax la isku daro combination la isu keeno. Are you curious about me? ma doonaysa waxyaala qaarkood inaad ogaatid. curious waa ogaanshaha waxyaala qaarkood oo nolosheeda ka mid inaad ogaatid. maybe you are afraid of me. Did I scare you? ma iga cabsatay? No. Well, I have to practice making scary face. marka muhiimaddu waxay tahay in shakhsiga baranaya luqadda ingiriiska ugu horeyn uu dhegaysto isla markaa uu ku celiyo. sababtoo waxaad ka baranaysaa ku dhawaaqidda micnaha ereygaad ku baranaysaa. tusaale ahaan ereyadan si fudud ayaa loogu dhawaaqaa haddii qofka uu dhegaysto. Are you staring at me? maanaad isu eegaysaa? Are you wondering about me? maanaad iga fikiraysaa oo kale? Well, of course you are. marka ku dhawaaqid waa saas. I'm a fascinating guy. waxaan ahay qof xiiso badan oo la xiiseeyo waxyaalo badan oo la xiiseeyo leh. marka haddii aan sii wadaan oh well anyway in this appendix I have divided some of my common preposition a combination into the small group. It's easier to learn a few at a time. So get started with group A. marka ku dhawaaqidda halkan ayaad ka bilaabaysaa. qofka hadlaya halkan ayuu ka bilaabayaa. haddii aan aado aan ku laabto a present time haddii aan tago tusaale ahaan kan ayaan furayaa. allaw ayaan leeyahay halkan ayuu ka bilaabayaa. hey hey what's happening how it's going. marka ereyada ay ka mid ahayeen kuwii aan ugu soo baranay halkan ayay ka bilaabanayaan. so hello I'm present progress. The simple present cares about what you do every day. waxa maalin walba aad samaysid. simple present not me. I only care about now right now xilligan la joogo present now. haddii la dhaafo waxay noqonaysaa mustaqbalka ama future ay noqonaysaa. haddii laga soo tagan waxay noqonaysaa past. marka haddii kan aan iminka aan joogno aan ka tagno waxaanu aadaynaa a future. kii horena wuxuu ahaa a past ayuu ahaa ma la soo dhaafay. I'm speaking to you. aniga ayaa kula hadlaya. You're listening to me. way dhegaysanaysaa. You're looking at the computer screen. oo iminka ah waa present hadda. I'm looking at you. adigaan ku eegaya. and I'm smiling. waan dhool cadaynaya. we say that these activities are in progress. waa wax socda. waxaan istaagin oo present isla markaana ah in progress. marka waxa la samaynayo xilliga lagu dhex jiro waa progress wax socda. marka waxyaalaha aan doonayn ogaan waxaa ka mid ah here's what you need to know. The present progressive talks about what's happening right now. Present progressive wuxuu ka hadlayaa waxa hadda dhacay iminka. I'm talking to you. waa a present progressive ayuu noqonayaa. The simple present talk about the daily habits or general statement of the fact. marka waxyaalaha maalin walba la sameeyo subaxdii marka lasoo tooso suuliga la aado ilkaha la caday waxyaalahaasoo kale waa daily habits wax maalin walba la sameeyo. I talk to lots of students. waxaan la hadlaa arday aad u fara badan. kan ayaad ka bilaabaysaa waad dhegaysanaysaa waana ku laabanaysaa. marka haddii aan eego kan oo kale aad ayuu xiiso badan yahay. allow yo it's me I'm troublemaker final dash s. do you sometimes forget to add me to the end of the word? well you're not alone. almost all English learners have trouble using me. marka qofkan waxaa la yidhaahdaa a final s-ka ugu dambeeya. kana waa muhiim. why? well look at this final.
s makes a noun a plural. wuxuu ku samaynayaa jamac ayuu ka dhigayaa. dadka luqadda ingiriiska barta intooda badan ereygan qoraalkan xarafkan muhiimka ah way ka iloobaan, kaasoo ah s-ka. marka Mr. Final S qofkan ayaa la yidhaahdaa. tusaale ahaan, you have two hands. dadka barta luqadda ingiriiska waxay leeyihin you have two hand. s-ka ayaa ka maqan. Final S makes verb a singular. My father works in an office. marka kan waa muhiim. And final S makes verb wuxuu ka dhigayaa a singular ayuu ka dhigayaa. It's easy to say I have two hand or my father work in an office. Yes, it's easy to forget to use me. So watch out, enjoy. marka kan ayuu sidan kugu sheegayaa. ha iloobin ayuu ku leeyahay pluralka sida loogu dhawaaqo isi la yidhaahdo. tusaale ahaan, gabadhan waxay leedahay hello, my name is English spelling. ama hingaadiye luqadda ingiriiska hingaad ayaa la yidhahdaa spelling. And I'm here to help you with an unpleasant fellow. Final dash s or a pluralka. Even his spelling is confusing. Oh, he's such a troublemaker. So let's see. When you do add just s and when do you add es? Salahan, remember you just add s almost all verbs. Not walba of verb waxaad ku daraysaa s ayaa ku daraysaa. Looks, feels, hopes, learns, eats, lives. marka kuwan s-ka aan ku darnay oo aan ka dhignay jamaca dhammaantooda waa verb. And you add es when verbs end in a ch. tusaale ahaan, watches. haddii ereyga verb uu ku dhammaado ch meesha ugu dambaysa, es ayaad ku daraysaa ch hadduu ku dhammaado. hadduu sh ku dhammaado noocan oo kale washes. s hadduu ku dhammaado sana passes kan ugu dambeeya. Also in very few verb, kuwa aad u yar oo verb ah ee ku dhammaada x ama z waxaa lagu daraa sidan s-ka sidana affixes es iyo buzzes. Buzzeska waxaa la yidhahdaa waxyaalaha dhawaaqa sameeya. haddii ay noqon lahayd shinida, albaabka gambalaalka waxa la yidhaahdo lasoo garaaco, diyaarad xog wax buzzinga sameeya noocu ahaadaba. ama you add es when you're changing a y to an e. sida fly becomes flies es. try becomes tries. marka waxaa muhiim ah vowelka, verb, noocyada kala duwan ee naxwaha luqadda ingiriiska waxaanu ku soo baranay casharadii hore ee shabakada sologroups.com. marka dhanka englishka ama luqadda ingiriiska ayaad ka hegi kartaan. marka hayloon buu ku yidhi in a vowel front the y. tusaale ahaan, buy becomes buys. pay becomes pays. tanna runtii aad ayaa dadku ay ugu wareeraan. dadka luqadda ingiriiska barta aanu fahmin, jahwareer ayaa ku dhaca. buy and pay sababtoo ah kan luqadda soomaaliga qofka wax ku bartay kuma jiro luqadda soomaaliga ama carabiga hadduu ahaadaba. saa awgeeda buy and pay confusion ayaa ku dhaxa ama waa lagu wareeraa. saa awgeeda ayaa saas looga kala saaraa. marka waa muhiim in qaabkaas aan u raacno. ugu dambeyn chapterkan kan ayaan ka eegayaa. alaa ayaan leeyahay non action verb. qofkana waxaan ahay ayay leedahay non action verb. You know the English alphabet. I like chocolate. Now compare with the action verb. You're reading this sentence. waxaad akhrinaysaa kan I'm talking, you're listening to me. marka qaabkan kala duwan ee present progress, verb, non action verb waxaan oo dhan waa la dhegaystaa. muhiimadda weyn waxay tahay halkan ayaad riixaysaa, waad dhegaysanaysaa. markaad dhegaysatid hore ayaad ka fahmaysaa waxa laga hadlaya. marka chapters kala duwan future time haddii aan eegno halkan ayaan ka bilaabayaa. alaa ayaan leeyahay hello again, my name is Fred. Hello again, my friend, I am Will. magaciisa ayaa la yidhaahdaa. marka wuxuu kuu sheegay you know I like my full name Will, but well when people talk they usually say, especially with a pronounced listen, you will hear contraction a lot. I'll say them for you. Will all listen carefully. She listen, he listen, they all listen. I'll be interesting. marka people also contact me the nouns all the time. Did you know that? But only in speaking, not in writing. Listen for a spoken contraction. Friday will be a good day. My classes will finish by noon. My sister will meet me around 3 p.m. or 3 a.m. Some friends will join us later for dinner. marka qaabkan waxa u shaqeeya oo lagu fahmi karaa chapterkii hore ayuu la socdaa. sababtoo ah dhammaan ma wada aqrin karno. nounska iyo siday u shaqeeyaan. marka sidan ayaad u raacaysaa ilaa aad ka gaartid meelaha muhiimka ah sida passiveka. haddii aan tagno
وسان نفرو الله ويان ليهي remember me you do cool I'm a present progressive honorable sovereignty a new school is being built on Elm Street marka muhiimaddu waxay tahay haddii luqadda ingiriiska aad ku samaysid progress aad ku samaysid ama waxyaabo badan aad kordhisid barashadeeda waxaad dareemaysaa erey walba meesha uu galayo dareemaysaa marka someone is building a new school we don't know who and we don't really care who so we use the passive a new school is being built on Elm Street marka macnaha waxay tahay fahamka oo ah qof ayaa iskuul cusub dhigaya ma ogin qofku yahay waxba nagama gelin qofku yahay marka waxaa la isticmaalayaa passive ayaa la isticmaalayaa taasoo ah new school is being built on Elm Street marka shaqo kuma leh qofka inuu yiraahdo waxa bildaya hebel iyo heblaye shirkad hebel iyo dawlad hebel ayaa dhisaysa iyo waxyaalahaas uma baana marka passive ayaa la isticmaalayaa marka wuxuu leeyahay just a minor point I just stopped by because I thought you might be interested check out chapter 10 and 15 I catch you later oo chapteradan oo sidan u kala duwan ilaa meesha ugu dambaysa aad gaartid marka waxa muhiim ah mar walba inaad isticmaashaan halkan wax yaala PDF file yaala oo casharka waxyaalo badan ku sheegaya marka kan ayaan sheegaynaa hello immediately marka qof walba uu kugu soo laabanaya SV agreement mar ayaan soo aragnay casharka ayuu ku jira immediately if you recall I am SV agreement I stopped you by because some learners have a problem with a subject verb agreement in adjective clauses like this the student who sits next to me is from Indonesia ardayga dhankayga fadhiya wuxuu ka yimid wadanka la yiraahdo Indonesia so do you see the problem maarta dhibka jira ama qaladka meesha ka jira right a student is a singular wakan singular who refers to singular noun student so the verb needs to be singular the student who sits next to me or haddii uu yahay jamac uu yahay kan waa mid kaliya the students who sit near me from Indonesia marka suu isu bedelay baa la eeg marka student who sit next to me is from Indonesia waa hal arday oo kaliya marka isbedelku wuxuu dhacayaa the students ardayda who sit fadhiya near me are waxay ka yimaadeen from Indonesia kan ayuu ka bedelaya marka singular subject singular verb plural subject and plural verb that's nothing new is it that's how the English works and it's just something many learners need to pay a little special attention to well nice to see you again marka waxaa loo baahan yahay in shakhsiga baranaya luqadda ingiriiska mar walba uu ogaado isbedelka meesha soo gelayo xilliga laga hadlayo subject verb xilliga laga hadlayo a singular noun xilliga laga hadlayo a plural wax walba laga hadlayo subjectiga marka kan ayaa aad tusaalaha ugu muhiimsan hadduu yiri the student who sits next to me is from Indonesia qofka muxuu samayn karaa haddii laba ama wax ka badan arday ay fadhiyaan tabcan wuxuu leeyahay the students who sit near me are from Indonesia ugu dambeyn waxaan eegaynaa aan ku laabanaynaa dhankan kaasoo aan eegayno noun clause oo kan ugu dambeeya bilowga ayaan ka bilaabayaa alaa ayaan leeyahay chapterkan waa 14 oo kan ugu dambeeya noun clause use me to express your thought ama waxyaalaha qalbiga ku jira ama aad ka fikirtid ayaa mar walba u isticmaalaysaa I think you're a very nice person or you use me to express your hopes I hope you enjoy this chapter or to express things you know or don't know I don't know where you are right now or to report what people say your friend told me that your English is very good marka haddii aad geshid non clause haddii aad geshid every subject oo luqadda ingiriiska oo aad raacdid qaabka loogu dhawaaqo qaabka la yiraahdo iyo inaad qalad samaysid waa muhiim in mar walba qalad la sameeyo sababtoo ah luqadda ingiriiska haddii aan la qaldin la sixi maayo saas ayay yiraahdaan marka laga baranayo muhiimaduna waxay tahay interactive ayaa ah qaabka ugu fudud ee lagu baran karo luqadda ingiriiska haddii la raaco marka chapteradan oo 14 halkan yaala waxay ku jiraan shabakada iyagoo sidana mar walba waxaad isticmaalaysaa flash haddii aan computer ku jirin right click saan ku soo arnay bilowga casharka kaasoo aad u isticmaali kartid in aad ku furtid Internet Explorer ama Firefox ama Edge wuxuu ahaado aad ku furtid marka mid walba waad raacaysaa sida weeyaad ku raacaysaa right click mar walba open
markaad tiraahdo halkan ayaa kuu soo baxaya wixii aad doontid ku furaysaa inta badan kan ayaa soo baxa laakiin haddii aad doontid more up haddii Windows 10 aad isticmaalaysid waxaad ku furaysaa key aad isleedahay uu ku furaya ayaad ku isticmaalaysaa marka qaabkaas waxaan filayaa in waxyaalo badan ay ardayda ka faa'iidi doonaan qaabka loo isticmaalo marka qofkii arday ah ee ku cusub luqadda halahan dhameeya waxaa la sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu baran karo luqadda ingiriiska waxaan filayaa in aad ula dhacdeen casharkan fundamentals of English grammar interactive listen repeat and learn English wixii macluumaad ah ee casharkan iyo casharada kale mar walba info@sologroups.com ayaa la soo xiriiri kartaan anigoo ah macallin cabdinaasir intaa wada kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu